عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaleyga qaaliga aan jeclahay meel walba aad joogtiin oo walaashiin Fatxi Business Official. walaalayaal marka ugu horeysay haddaad tahay daawade oo aad channelkayga soo booqatid fadlan channelkayga subscribe, like-ta, share-ka waa xagiina. haddaa hore noola joogtay oo gambaleelka kuu furan yahay dabaashid isku ogaa like-ta iyo share-ka iyo commentigana waa ii dhiirigelin waayo waxaan ogahay in aan maxaan dhihi jiray dad walaaley aad tihiin oo aniga igu xiran. saasay tahay walaalahayga channelkayga waa ka caajisteen. waxaad igu caajisteenna waxay tahay waxaan noqday qof iska lazy ah anytime iskaga maqan channelkeeda. hadda wixii ka bilowdo maanta waxaan ii ballan qaadayaa everyday in aan muuqaal cusub igu arki doontiin insha allah. waxyaabo iniga nii faa'iideynayo iyo waxyaabo business ah ama waxyaabihi ay ugu taqaaniin riwaayadii sidoo kale barankiyadii waxyaabo badan ay ku taqaaniin waa soo bandhigi doona insha allah. waa walaashin Fatxi oo mar labaad nii soo laabatay. marka walaaleyga qaaliga ah maanta mawduuca meeshan igu hayo waxay tahay mawduuc kale ma ahan. waxaan nii keenay alaabtan saliidan waxaa la dhahaa dayax. marka walaaleyga qaaliga ah saliidan sidaa u wada aragteen waxaa ku taqaaniin simran. simran saliidan waxaa loo isticmaalaa hubka gabdhaha gacmaha ka caatada ah, sidoo kale gabdhaha strangmentiga leh, gabdhaha chemicalka dilooday, gabdhaha xididooyinka banaanka ka yaalo like that waxyaabo badan ayay kaa saacideynaysaa. siiba waxay kaa saacideynaysaa haddaa qaybta hoose caata ka tahay, haddaa tahay qof gacmihiisa xidido leh ama wada caata ah, ama waxay kaloo kaa saacideynaysaa oo kale strangmentka dadka strangmentka aadka u dilooday ama libaxyada sa u taqaaniin Soomaali way baabi'inaysaa. waa wax shugur ah oo la hubo oo maxaa dhihi jiray niga baabi'inayso. haddaa u baahan tihiinna waxaa kasoo eeganaysiin lambarka qaybta shaashada insha allah. alaabta way badan tahay hal iyo labo ma ahan. alaabtana kala nii soo hartay waa saabuun madmadowga faraha pinki aa la dhahaa dayax pinki waxay baabi'inaysaa faraha madmadowga ah. sidoo kale gacmaha inta sadaa madow ka tahay, haddaa lugaha madow ka tahay, haddaa maxaa dhihi jira meel qasqas intaa marsatay ama newlight oo kale ay kaa goyso kale way kaa baabi'inaysaa. alaabtan waxyaabo badan ay u difaac u tahay. wallaahi maanta wax yariisa ani marsaday xaqiiqadii markaa mariyay fareyga madow because qofka markuu cuslaado waa dareemi kartiin madmadow waa galaayo madowga ajligiisa ayaa maxaa dhihi jiray 5 daqiiqo iga baabi'iyey 5 minutes xataa wallaahi iima sii marsaneen. waa alaab la hubo. haddaa u baahan tahay qiimihiisa iyo wax walbo lambarka shaashada ku qoran ayaa kala soo xiriiraysaa insha allah. haddaan haddana dhanka kale usoo gudubno alaabtan waa saabuunta gabdhaha pimboska ama nabraha saa u taqaaniin halkaa wejigitaanka ka dilooday. khaasatan gabdho badan oo muqdisho joogaan nabro wejiga ka galay oo laleeyahay waxaa laleeyahay daawo hebelaa kan ku ah daawo hebelaa kan ku ah abaa wejigaaga difaaciisa adaa ilaalin kartaa. qof walba meel wax uu la soo fadhiistay taas been ma ahan. laakiin saabuuntan surely nabraha way kaa baabi'inaysaa. midda kale jirkaaga markaa ku dhaqda xataa ismuul waxay ku siinaysaa qurux iyo dhalaal ayaa ka qaadaysaa. saabuuntan uu ka mid yahay alaabta productyada aan soo saarnay. waxaa kaloo meesha niigu hayaa qasqaskan dhala ayuu kaa dhigayaa muddo 3 days hadduu waxba kaa tiri waayo. waxaan ku dhahay aniga Fatxi waxaan soo xayeysiin waa taqaaniin wax been ah ama mala'waal aniga meelaha lama soo fadhiisto. qofka bilaa-aadankana waxaa fiican wax markuu soo saarayo wax uu hubo oo surely inuu meesha lasoo fadhiisto. marka waa helaysay qasqaska sidoo kale faceka oil faceka saabuunihii ayagana hadda nama agyaalaan oo gabdhaha gaduudanayay saliidii wejiga gabdhaha gaduudanayay sidoo kale productyo laisku caateyna ayagana waan haynaa insha allah. waxyaabo badan inta lagu soo koobi karin product waxaa jira 2 days markaa isticmaashid kaa go-ayso 2 kiilo oo aad dareemaysid maalinkiiba kiilo ayaa kaa go-aysaa. calooshaaba musqul adoo galaysid musqul xad dhaafna ahayn oona jirkaaga nadiifinayo aana noqonaynin qof caata ah oo lafa ah aad noqonaysid isneelo dhaxyar. ayadana alaabtaas insha allah waan iisoo bandhigi doonaa. waxyaabo badan inta kusoo koobi karin. sidoo kale wax badanaa niga dambeeyey
maanta caawa barnaamijka wuxuu saaran yahay alaabaha aan hayo fatxi ahaan ama fatxi business ahaan. alaabaha aan hayo waxay tahay sidoo kale fadhiyada jiifafka, haddaad alaab cusboonaysinaysanid oo kuraasta maryaha lagaaga bedelayo, sidoo kale haddaad rabtid jiifka inaad iska bedeshidoo kale waxyaabo badan inta lagu soo koobi karin. waraca bili-aadanaa gadna wax yaraa nooga dhiman, ma fahanteen? marka walaaleyga qaaliga ah, waxaan maanta magaca iyo sharafta aan ku yeeshay waa iniga idaawanayo. waxaan ogahay inaa walaalahay tiidiin, waxaan nahay dad hawada ka midoobay. waa dareemi kartiin qofka markuu hooyo iyo aabo isku yahay oo asaga keligiis ay wax walba sugayaan mashquulkiisa. marka aniga youtube-keyga kama fadhiisanin, kama caajisin waxyaaba ajligeeda dhibaatada i haysatay iyo mashquulkaas. aniga lifekeygana hore waad ugu aragteen social media, mana jecli. aniga waxaan jeclahay mar walba gabar walba oo soomaaliyeed horumarkeeda, waayo qofka bili-aadanka horumarkiisa wuxuu ku gaari karaa waa inuu walaalkiisa isagana caawiyaa. haddaad tahay qof walaalkiisa xasdaya adiga horumar ma gaaraysid. walaalayaal waxaa dhacday aniga in laygu xasdo horumarka aan sameynayo. yaa i xasdayo dad kale ma ahan, dad aniga i dhow waa. soo fahmin? gabdhahan soomaaliyeed horta waxaan iga digayaa, oo waayo dhimbilka waxaa la ninka asaga dabka kusoo gubto unba dambaskiisa ka cararaa. soo ma fahmin? aniga waxa i gubay ama i rafaadiyey waxay tahay dad aniga aan hoosta soo gashtay oo aan soo dhaweystay oo aan walaal ka dhigtay. soo ma fahmin? waxa ii weyseen oo aniga i mashquuliyey waa xanuun walaalay. haddaad runta rabtiin iyo dii kalaba waa inaan ka hadla mawduucaas. ma rabin inaa alaabahayga bas ku xayisista aan meesha usoo fadhiistay, laakiin waxaa iga keenay hadalkaas xanuunka qabta iyo ilmahayga si laiga fadhiisiyey iyo sidaan u shaqaysan waayo. soomaali waxay dhahaa hebel waa la sixray. aniga sixirka ma aaminsani, waayo haddii aad shantaada waqti tukanaysid oo ilaahay aad ku xiran tahay, sixir wax la dhahay waxba kaama taraayo. soo fahmin? dad baa waxaa jiraan meel intay soo fadhiisteen waa lay soo sixray ayagoo leh social media la soo fadhiistay, laakiin aniga lama soo fadhiisanayo. soo fahmin? adiga haddaad farta isku fiiqdo aniga farta kuguma fiiqin. haddaad adiga isdhahay fatxi aniga i haysataa ama aniga iiga hadlaysaa mawduuca walaal macaan qof bil-aan ah oga hadlayo ma jirto. inta dhibaatada i gaarsiisana dad iga dheer ma ahan. soo fahmin? qof ma jiraa qof asxaab kali ma ahan dadka dhibaateeyo. waa dad aniga ehelkayga ah, waa dad aniga ii dhow dadka iiga dhow. soo fahmin? waa dad aniga aan ka dhigtay walaal, heer aan gaaray gabal xanje haddaan cunayo in aan la qaybsado. walaalayga qaaliga ah, dukaankayga dad badan ayaa intay koreen isoo waayeen ramadaankii ilaa up to now. aniga waa lay wada yaqaanaa, anigoo xaamilo ah oo weli laba nafla ah ayaa waxaan li jiray barbaraha xataa ka shaqaynaya. qof walba u yaqaanaa. soo fahmin? waxa hadda anigoo maanta dukaan ii furanya aan u imaan waayana waa xanuun aniga nafsadeyda i haysato. xanuunka aniga haayana allah iga keena oo keliya ayaa iga daaweyn karaa. qof bil-aana oo calaacalay ama qof bil-aana aan baryay waxba igama tari karo. soo fahmin? xanuunka aniga maanta i haaya fatxi ahaan, hooyaday risaale maxamuud xareeda la dhahaa, ayada waxba igama qaban karto. soo fahmin? aabbahay allah u naxariisto yuusuf axmed yaasiin waxba igama qaban karo. maanta hadduu noolaan lahaa waxaan hubaa inaan dhibaato iyo ciil arki lahayn, waayo aniga aabbahay qof wadaad oo la yaqaano ayuu ahaa, weligiisna caawin jiray dadka agoonta, ilmaha agoonta ama dadka dhibaataysan. soo fahmin? marka walaalayga qaaliga ah, aabbahay wuxuu ahaa qof masaakiinta caawiyo, wuxuu ahaa qofka dhibaataysan caawiyo, wuxuu ahaa ilmaha lasoo tuuro oo soomaali waxay dhahaan cunug banaanka laga soo tuuro wecel, ilmaha wecelada lagu soo tuuro xamar qof walba u yaqaanaa ama caasha foundation. wuxuu ahaa dadka hay-adaha meeshaas ku haya ilmaha agoonta caawiyo, qof walbana wuu ogaa. ilaaha u naxariista aabbahay, wuxuu adduunka ku shaqaysto unbuu aqarag la aaday. nexti aniga maanta dhibaatada i haysato dhibaato kale ma ahan, waa dhibaato aniga dad aniga ii dhow ii geysteen asxaabe. soo fahmin? maanta mawduucan waxaa rabay inaan uga hadlo ganacsigayga bas, laakiin danta igu kaliftay inaan uga hadlo waxyaabihii laygu sameeyey ama qalbadeyda waxyaabihii iyo dhaawacii isoo gaaray
waxaa kalifay dad aniga ii adeegsanaya inaan aqliga la ahay, waayo aniga aqliga ma li'i, qof bil'aadan adigoo kale ayaan ahay. soo fahmin, maskaxdeedana waa tamaam, qof waalan ma ihi. waxaad ii isticmaashay adiga, waad og tahay qofkaad tahayna aniga waan ku aqaanaa, hebel kuma dhahayo, magacaagana meesha naguma soo dhawaaqaayo. soo fahmin, anigii adigana allah ayaa noo dhexeeyaa, qof bil'aadan kale oo noo dhexeeya maanta aniga Fatxi ahaan ma jirto. soo fahmin, waxyaabaha aad igu samaysana ilaaha ayaa kaa daalacanayo, waayo bil'aadan haddan kaaga dacwadi hadii kale waxba igama kaa qaban karaan. soo fahmin, laakiin maanta waxaa ku tusinayaa dhibaatada aad ii geysatay in aan dareemo oon damiir leeyahay, oon dhiig leeyahay, oo dhacaan leeyahay. waayo maxaad iga dilaynaysaa? waxaan ahay hooyo 4 caruur haysataa, oona aabu ah, ragga dhalay ilmahaas igu wada deeriyeen, mid aniga maanta hal shilin Fatxi ahaan ku dhima idhahayo kuma jiro. soo fahmin, aniga ayaa naagnimadeeda iyo kartideeda isticmaalay, waan shaqaystay. soo fahmin, dukaankaana qofka aniga caawiyo aniga ayay secret ii tahay, wax aniga uu dad leeyahay ama dad igu shaqaysanayo ma ahayn, waa wax ilaahay i siiyey, oo ilaahay wuxuu kuu qorayana habeenka caloosha hooyada aad ka soo bixaysid ayay kuu qorantahay, ma gafaysid. ogow adigaas horumar ma gaaraysid, waayo gabar walaasha ayaan ahay. maalin walbana wax aniga nafsadeeda dhibaateynaya ayaad igu sameynaysay. soo fahmin, waad ii dhaweyd, waxaa kaa dhigtay ehel, waxaa kaa dhigtay aqrib, waxaan kaa dhigtay walaalkayga iga weyn oo kale. soo fahmin, heer waxaad gaartay habeen iyo maalin ina aniga biyo wax iigu qastid. soo fahmin, heer waxaa i gaarsiisay waxa aniga ii keentid nolosheeda kama shakinin, kamana ma ka shalaynin. soo fahmin, heer waxaad i gaarsiisay nafsadayda xataa aniga aan shoo ka qaabay. heer Soomaaliyeed waxaa marayaa guriga aniga aan leeyahay inaan cunto ka cuni waayo, shooga aan qaado oo keliya. waayo waxaan uga cuni waaya waxay tahay qofkii har iyo habeen ugu dhex jiraa, wuu noo imaanayaa, gurigan uu taagan yahay. waayo ma dhihi kartid maxaa lihi jira, laakiin wax walba ilaahay hadduu kugu talagalaa wuu ku tusinayaa. soo fahmin, qofka hataa waa istaqaanaa Cali Faaraxow, yah walaalow ilaahay haddaad taqaanid oo islaan tahay, aniga gabar walaasha ayaan ahay, ina adeerkayaa tahay. soo fahmin, maanta aniga adiga lafo ima dheerid, lafana kuma dheerin, 2 ruux oo simanaan nahay. soo fahmin, walaalow macanow maxaan kaa galabsada aad iga dilaysaa? nin daarood aad tahay, daarood macno, anigana naag daarooda ah. inaan qabiil weligay social media kuma soo magacaabin. kulaalkan waxaa iga keenay hadallada aad igu tiri ayaa qalbadeeda dhaawacay. war muuqaal iska daaya, noloshaada waxaa haysid soo fasax, waayo weligay aniga sharmuuto ma noqon, mana soo samaysanin. soo fahmin, adiga haddaa sharmuut tahay oo candhalaayo meelaha ku wadwadid, aniga Fatxi Yuusuf waxba igama qaadaysid. soo fahmin, saxaabay goodiskaas iyo qaladkaas iyo dhibaatadaas igu dhacay ninkaas ayaa ka dambeeya. ninkuu yahayna goordhow anaa nii soo bandhigayo. soo fahmin, waa qof ha wada taqaanin, waa qof social media caan ka ah, qofka aniga saas ii isticmaalayo. soo fahmin, wuxuu yahayna wuu arki doonaa, ilaahay ayaa aniga isagana kala bixin doona. nakisti alaabahan waa alaabo ni anfici doono, khaasatan gabdhaha daawada dileen, reer Muqdisho, reer Ameerika, meel walba adduunka aad joogtiin waana soo gaarsiin karnaa, dal iyo dibadba. haddaa baadiye joogtid, meel walba aad joogtiin, waana qiimo macquul ah oo ku anfacayo, wax feegna meesha kuma hayno. insha allah laalayga qaaliga ah. qofkan wuxuu isdhahay Fatxi dukaankeedu ka burburay, ma shaqaysan doonto, saa la rabi waaye, bil walba kiraday bixisaa, ma imaanayso shaqadeeda. walaal macaan, ilaahay irsaaqadii isiinaya adiga igama kabaala qaadin. waa soo laabtay walaalayaal, hadal iyo gebagabadiisa saan u soo laabtay waaye. soo fahmin, waxaad iga tari laheedbo xayawaanow soo diyaarso. magaalada waa saa u soo laabtay. daane adiga lafa isma dheerin, kabana ima dheerid, aabana ima dheerid, hooyana ima dheerid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan videogan haddii soo gaaro dhammaan asxaabta qaaliga igu xiran Fatxi Business Official ama familka hadda igu soo biiri doono insha allah, dhammaantiin waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan iyo niyad saafi ah. kusoo dhawaada walaalayga qaaliga ah. fadlan channelkayga haddaa aragtid, waxaan jeclahay
kontonka kun wax yar ayaa iiga dhiman insha allah. waxaan jeclaa inaa isii gaarsiisiin 100 kun sida dadka kale aa u gaarsiiseen. marka khiyaarta qaaliga ah waa sidaas suuqa ugu soo laabtay. please subscribe kaaliga iloowin insha allah. waayo waxaan rajeynayaa inaan noqdo mar dhow insha allah walaashiin oo sida iniga heerkan hadda maanta intaan aan taagana iniga isu gaarsiiseen. gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeyga alaabtan qofkii u baahan xataa wuu noo imaan karaa. gacmahaaga haddii aad newladka u dilatay aad u madmadowdahay iyo lugahaaga waa lagugu dhaqaa insha allah. lambarka ayaa shaashada niisu saari doonaa insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga maalin walba ayaa is hortaagnaan doona insha allah. one love.